kulantaha boonda wadayaal halkani waa NTN TV wararka telefishinka NTN aan udiinaya waxa kamida madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad xasaasi ah u jeediyay shacabka Soomaaliyeed kadib kolkii uu xilka kala wareegay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa kulan la qaatay qaar kamida madaxda hay'adaha socdaalka xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in uu afar arrimood oo xasaasi ah ku soo arkay filla Soomaaliya dib ka qaybgalkiisii munaasabadda xil wareejinta sidoo kale wararkaan idin waxaa kamid ah siyaasiyiinta Soomaalida Kenya oo sheegay arrin ay ka doonayaan madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Hirshabelle waxa uu gaaray deegaanka Ceelmacaan halkaas oo uu kulan kula qaatay bulshada ku dhaqan deegaankaasi wararka ka baxsan Soomaalida oo ayna idin haynana waxa kamid ah dawladda Ukraine oo baadigoob ugu jirta hub uu Ruushku si weyn uga baqayo isla markaana dawladaha dariska ah ugu baaqday in hubkaasi ka taageerto Mareykanka oo sheegay in Taiwan uu garab siin doono haddii Shiinuhu uu duulaan ku qaado qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaa warkeena ومعلومات ثلاثة تاريخنا يكون أساساً تهاي أفر لبعتنك مي سنة لبي لبعتنك وشو هذا قضبة سي أتصود وتين وفافاسن مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن شيخ محمود وحا حلكي السر رسمي ولوريغي مدحوينيه هوري ثلاثة كدغي محمد عبد الله فرماجو مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية دوالا دورتي حسن شيخ محمود ayaa xil wareejinta wax uu ka sheegay arrin laga dhursugayay dhawaanahani taa la xiriirtay waxa dawladda cusub ay ka yeeli doonto askartii dhawaan loo qaaday dalka Eritrea kuwaasi oo eheladoodu in badan ay baaq u dirayeen madaxda dawladda Soomaaliya madaxweynaha cusub Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in askartaasi tababarku u dhamaaday isla markaana ay ku dadaali doonaan sidii dalka gudihiisa ay dib ugu soo celin lahaayeen siyaasi Axmed Macalin Fiqi oo horey uga mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya kana mid ahaa xubnihii lagu casuumay ka qaybgalka munaasabadda xil wareejinta madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in afar arrimood oo xasaasi ah uu ku soo arkay madaxtooyada Soomaaliya taasi oo ka dhignayd in Axmed Macalin Fiqi uu dhowrkii sano u dambeeyay filla Soomaaliya dabadjoog ka ahaa Axmed Macalin Fiqi wuxuu sheegay arrimaha isbedel kale oo uu soo arkay inay kamid ahaayeen dhalinyarada iyo askarta ku sugnayd filla Soomaaliya oo asagu sheegay in ay aad ugu farxeen la wareegitaanka xafiiska ee Xasan Sheekh Maxamuud Axmed Macalin Fiqi wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday in warbaahinta maxalliga ah ee gaarka loo leeyahay ay muddo badan ayaguna banaanjoog ka ahaayeen waxa ka socda gudaha filla Soomaaliya isbedelka ma ay qodoodu si weyn ula dhaceen wuxuu sidoo kale sheegay in madaxda kala duwan ee hay'adaha dawladda ee yimid munaasabadda intooda badani ay ahaayeen kuwa ay ku cusbay in lagu casuumo munaasabad ka dhacda filla Soomaaliya sidoo kale wuxuu sheegay in dhalinyaro TikTok gacanka ah iyo qaybo kale oo badan ay ka qayb galeen ahaayeen wixii soo jiitay indhihiisa isla markaana uu isbedelka u arkay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa kulan la qaatay madaxda hay'adaha socdaalka adduunka ee loo soo gaabiyo IOM kulanka madaxweynaha Jubbaland iyo madaxda hay'adaha socdaalka adduunka ayaa looga hadlay arrimaha dib u soo celinta qaxootiga iyo taageerada hay'adaha socdaalku ay ka siinayaan socdaalka xuduudaha ee dawlad goboleedka Jubbaland iyo dawladaha dariska la ah dawladda Soomaaliya sidoo kale kulanka Axmed Madoobe iyo saraakiisha dhexmaray waxa lagu soo hadal qaaday sidii ay isaga kaashan lahaayeen labada dhinac fududeynta socdaalada iska gudubka iyo shacabka socdaalkiisa kale qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee ku nool dalka Kenya ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay ka codsadeen inuu u fidiyo xiriir diblomaasi isla markaana dawladda Kenya oo ganacsigoodu uu ku xiran yahay imika ay tahay mid aan xiriirada labada dal ay isduusan wanaagsanayn iyagoo ugu baaqay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu soo celiyo xiriirkii labada dal si ganacsiga Soomaalida iyo Kenyaanku uu noqdo mid wanaagsan isla markaana uu soo laabato wax isweydaarsigii labada dal xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo kamid ah mudanayaasha laga soo doorto dalka Kenya
ayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uga mahad celiyay sidii wanaagsanayd uu xilka ugu wareejiyay madaxweynaha cusub waxa uuna tahniyeeyay ama soo dhaweeyay madaxweynaha cusub ee xilka la wareegay mudane Xasan Sheekh Maxamuud xildhibaan Yuusuf Xasan ayaa sidoo kale ku baaqay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu si dhow ula socdo nolosha dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya kuwaasi oo aad u fara badan ayna Kenya ka mid tahay dalalka dariska ah Soomaaliya una baqoolaan dadka Soomaaliyeed dawladda Mareykanku waxa ay ballan qaaday in dawladda Taiwan ay gacan weyn ku siin doonto sidii ay isaga difaaci lahayd dawladda Shiinaha oo dhowr jeer ku hanjabtay inay weerari doonto jasiiradda Taiwan ee qayb ahaan ka mid ahayd dalkaasi China Mareykanku wuxuu sheegay in daandaansiga China uu u babacdhigi doono haddii ay isku dayaan inay Taiwan weeraraan taas beddelkeedana ay garab siin doonaan dawladda Taiwan dawladda dalka Ukraine oo dhowr bilood ka hor uu weerar ku qaaday dalka Ruushku waxay imika xusulduub ugu jirtaa sidii ay ku heli lahayd hubka culus ama hubka aadka wax u gumaada kaasi oo dawladda Ruushku ay aad uga walaacsan tahay inuu gacanta u galo dawladda Ukraine oo dagaal xooggan uu kala dhaxeeyo Ukraine waxa ay imika helaysaa taageero aan saa u buurnayn oo ay ka helayso qaar ka mid ah dalalka caalamka saaxiibadood waxa ay u kala jabeen kuwa dagaalka Ukraine ee Ruushku ku qaaday ka gaabsaday iyo kuwa taageero aan toos ahayn u fidiyay Ruushku istiraatiijiyadda dagaal ee uu ka wada Ukraine wuxuu aaminsan yahay inuu yool ka gaari doono walow qaybo ka mid ah dalkaasi uu la wareegay haddana Ukraine waxa ay weli wadaa dhaqdhaqaaq isdifaacideed oo ay rabto in awoodda dalkaasi Ruushka ay kaga hortagto MTN TV